kulanti wanaagsan daawadayaal idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka qubanaha maanta. Qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah ku dhawaad 30,000 oo arday ah oo bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya u fariistay imtixaanka dugsiga sare. Kalluumaystada Soomaaliya oo sheegay inay dib weyn kala kulmaan doonyaha sida sharci darrada ah uga kalluumaysta xeebaha dalka. Iyo Amir Harry oo maanta aroosay Meghan Markle oo ah gabar Mareykan. aan ku bilownay waxaa maanta marqura bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya imtixaanka dugsiga sare u fariistay arday ka badan 27,000. imtixaankan waxaa hagaysa oo daadahaynaysa dowladda federaalka Soomaaliya. wariyaha Muqdisho nooga soo warrama Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan inoo haya. arday tiradoodu gaarayso 27,600 oo soo dhamaysatay waxbarashada dugsiga sare ayaa maanta u fariisatay imtixaanka midaysan ee shahaadiga ee ay qabanayso wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo dugsiga 15 May ku daahfuray imtixaanka kama dambaysta ayaa ka warbixiyay tirada ardayda maanta imtixaanka u fariisanaysa. waxaan joognaa saaka iskuulka 15 May oo ah iskuul magaalada Muqdisho gaar ahaan dalka Soomaaliya caan ku ah oo la yaqaano halkaas oo aan ku daahfurnay imtixaankii sanad dugsiyeedka oo ay u fadhiyaan maanta arday ku dhow 28,000 wadanka badankiis. dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo kormeer ku sameynayay goobaha ay ardaydu imtixaanka ku galayaan ayaa hoosta ka xariiqay in magaalada Muqdisho oo kaliya ay maanta imtixaanka u fariisteen arday tiradoodu gaarayso 21,000 oo ku kala galaya 62 xarumood, waxaana uu ku tilmaamay in arrintaasi ay tahay guul u soo hoyatay maamulka gobolka Banaadir. annaga ka maamul gobol ahaan waxaan aad ugu faraxsanahay maanta gobolka Banaadir in imtixaanadii si habsami leh uga socdaan 62 goobood oo waxbarasho ay ka socdaan imtixaanadan ay yihiin mid midaysan marka waa farxad u soo hoyatay shacabka gobolka Banaadir. dhinaca kale waxaa dib u dhac ku yimid imtixaanka arday tiradoodu gaarayso 1,400 oo ku sugan magaalada Beledweyne sabab la xiriira fatahaadaha uu sameeyay wabiga Shabeelle. imtixaankan ayaa noqonaya kii afraad oo shahaadi ah oo lagu midaysan yahay oo ay qabato wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho. Soomaaliya oo leh xeebta ugu kheyraadka badan leh qaaradda Afrika ayaa kalluumaystadeedu waxa ay ka cabanayaan dhibaato xooggan oo ay kala kulmaan kalluumaysiga sharci darrada. waxa ay sheegayaan in dowladda Soomaaliya aanay lahayn awood weyn oo ay isku hortaagto kalluumaysigaasi sharci darrada ah. warbixintan waxaa Boosaaso ka soo diray wariyaha VOA-da Jason Batinken waxa ay noo soo koobaya Nur Bukhari. aroor walba kalluumaysatada magaalada dhacda badda cas ee Soomaaliya ee Boosaaso waxay suuqa la yimaadaan noocyo kala duwan oo ka mid ah kalluunka oo ay ku jiraan toonada, yaxaaska, maarliinta iyo kuwo kale. waxay u eg tahay in kalluumaysatada ay badda kala soo laabtaan rar badan oo kalluun ah, laakiin xaalku sidaasi ma ahan sida uu sheegayo Maxamed Ilyaas Cabdulqaadir oo ka cabanaya maraakiib ajnabi oo dhibaato daran ku haya kalluumaysatada Soomaaliyeed. kalluun tugeysi baa jira, waxyaabo badan baa jira, ma fahamtay dhibaatooyin badan baan cabanaynaa. niman Eeraanin la yiraahdo iyo waxyaabo badan baa dalka soo galay. saasay tahayna anagu dawlad aad ma taqaanaa power u leenahay nimankaasina aad bay anagu dalkeena dhibaato weyn ugu hayaan. muddo iminka laga joogo 10 sanadood kalluumaysatada Soomaaliyeed ayaa hubka qaatay si ay ula dagaalamaan doonyo kalluumaysi oo ajnabi ah. qaar kuwaasi ka mid ah ayaa isu bedelay burcadbadeed afduub kula dhaqaaqay maraakiibta ganacsi ee mara xeebaha Soomaaliya iyo marinbiyoodka geeska Afrika. dadaallo ay sameeyeen ciidamo caalami ah ayaa wiiqay awooddii burcadbadeedda, hase yeeshee Ilyaas Cabdulqaadir ayaa sheegaya in ciidamada ajnabiga ah aysan waxba ka qaban maraakiibta sida sharci darrada ah uga kalluumaysata xeebaha Soomaaliya ee dhibaatadana ku haya kalluumaysatada dooniyaha yaryar wata ee Soomaalida. nimankaaniti anagu aad bay nooga fogeeyeen, ma fahamtay. badweyntu wax la yiraahdana waa ka shaqaystaan aalad shabaagahoodana shabaag aad u dhaadheer weeyo anaga aalad badan yihiin.
khubarada ayaa rumaysan in inta ay jiraan kalluumaysatada ajnebiga ah ee sida sharci darrada ah uga kalluumaysanaya xeebaha soomaaliya ay jiri doonto khatarta ah soo laabashada burcadbadeedda sidaas daraaddeed ayay qaramada midoobey rajaynaysaa in ugu yaraan barnaamijyada horumarinta ah ay u samaynayso wax soo saarka kalluumaysiga soomaaliya uu wax u tari karo kalluumaysatada soomaaliya nawaaxiga magaalada boosaaso koox dumar ah ayaa lagu siiyaa tababaro la xiriira suuqgeynta hilibka malayga dhammaan kalluunka ay suuq geeyaan waxaa soo dabay oo badda ka soo jallaabay dhallinyaro loo tababaray sidii ay gunta badda uga keeni lahaayeen kalluun kala duwan dhallinyaradan ayaa waxaa sidoo kale la siiyey doonyo gaari kara meelo fog maanta waxay keeneen yaxaas marka la jarjaro oo la qallajiyo ayaa loo iibgeyn doonaa magaalooyinka soomaaliya dumarka iibiya ayaa hela lacagihii ay shaqaysteen sidoo kale waxa ay helaan kalluun cusub oo maalin walba ay ku quudiyaan qoysaskooda dawo sheekh maxamuud ayaa ka mid ah dumarka ka faa'iidaysta barnaamijkani hadday ilmaha iga dayacsanaayeen dariskale ku dhaaf jiri iyakoo wareegayana imaa jiri hadda howshaana subaxdii iska qabaa ilmaha u sii tashanaaciyo tana hadda inaa wax kale ka rajeeyana intana u fiican michael sayfins oo isku duwo ka ah barnaamijka qaramada midoobe ee lagu taageero kalluumaysatada soomaaliya ayaa sheegay in dad badan oo gaaraya ilaa iyo 100 ruux ay hadda shaqo ka heleen barnaamijkani sidoo kalena ay tiigsanayaan ilaa dhammaadka sanadkan in ay gaarsiin doonaan shaqo abuurka ilaa iyo 500 oo ruux ma jirto wax ka wanaagsan dhallinyarada deegaanka oo si tayo leh oo wanaagsan badda uga soo kalluumaysta kadibna kalluunkaasi u keena bulshadooda si loo suuq geeyo waxaad dhihi kartaa waa isku filnaansho soo jilaabasho habayso oo suuq geyso intii ay soomaaliya la halgamayso sidii ay u xakamayn lahayd xeebaheeda barnaamijyada noocan oo kale ah ayaa dhallinyarada kalluumaysatada ah ka caawin kara in aysan dib ugu laaban falalka burcadbadeedda amiir haari oo ka tirsan qoyska boqortooyada ingiriiska ayaa maanta guursaday gabar maraykan ah oo jilaa ah oo lagu magacaabo Meghan Markle. Meghan waa gabar madow iyo caddaan maraykan ah ay iska dhaleen. arooska ayaa ka dhacay Windsor oo ku taala duleedka magaalada London. boqoradda Ingiriiska Queen Elizabeth ayaa ka qayb gashay arooska waxaana sidoo kale lagu casuumay 600 oo qof oo marti ah oo ay ku jiraan dad caan ah oo ka tirsan Hollywoodka. Meghan Markle oo ku dhalatay California ayaa ah garoob waxayna noqonaysaa gabadhii ugu horeysay ee iska dhal madow iyo caddaan ah ee ku biirta boqortooyada Ingiriiska. Amiir Harry waxaa malxiis u ahaa walaalkii Amiir William halka gabdho yaryarna ay malxiisayaal u ahaayeen Meghan. arooska markuu dhacay kadib waxaa lamaanaha isguursaday lagu qaaday gaari farasa oo la mariyay magaalada Windsor halkaasi oo kumanaan kun oo qof ay wadooyinka safnaayeen si weynna ugu mashxaradayeen arooska. isla wararka aroosyada ayaynu ku jirnaaye iyadoo looga bartay Soomaaliya in arooska xilliga habeenkii la galbiyo ayaa haatan waxaa bilaabatay in dharaar cad la qabto. Fatxa Maxamuud Tarabi ayaa dhowaan xafladda arooskeeda dharaar cad ku dhigatay magaalada Hargeysa. Wariyaheena Sagal Mustafa ayaa weydiisay sababta ka dambaysa arrintaasi. sagalay kama kharash yara horta xagga kharashka waa isku mid halkan aba nagaga kharash badan oo nagaga hawl badan muhiimaddu waxa weeyaan time badan uu ka time badan yahay 7 subaxnimo ilaa 7 habeenimo time baan haysanaa si fiican baan u baashaaleynaa maalinimo weeyaan waana dhiseen cusub intaas uu kaga duwan yahay ee kama kharash yara waayo arooska habeenkii waa dhiseen dad cid kasta samaysato habeenku marka dhiseenka cusub iyo maalinta time-ka badan ee 7 subaxnimo ilaa 7 habeenimo ayuu ma ku jecelaystay ka saacada badan yahay ka saacada badan uu ka time badan habeenkii oo kale aroosyada la dhigay imsa saacadood ba lagu jiraa 2 saac qarba baa lagu jiray marka uu ka time badan yahay aad badan mahadsan aad badan wala shaqaan sideen wada arkayno xaajigi kuma garab joogo miyuu maqan yahay bal nooga war xaajiga xaajigaygu maqan yahay laakiin niyadiga la jooga way gala faraxsay ma sha Allah aad badan mahadsan ilaanti ma qurux badnaadeen ba aad badan mahadsan aad badan wala shaqaan waa markii ugu horeysay oo imika saacadu tahay 2 duhurnimo aroos noocan oo kala ah oo hadcad la hooyo uu ka dhaco magaalada Hargeysa. Sagal Mustafa Xasan Nuur VOA Hargeysa. markana waa wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha waxaa la diyaaraa Nuur Xasan Nuur Bukhari oo Washington ku sugan.
nuur haye. mahadsanid jacfar. kusoo dhowaada daawadayaal xubinta ciyaaraha. qodobada aan idinkuga haynana waxaa ka mid ah tartan kubadda cagta ah oo ka furmay magaalada garowe iyo kooxda Parma oo dib ugu soo laabatay horyaalka Serie A Talyaaniga kadib 4 sano oo ay ka maqnayd. marka hore se aan ku bilowno ciyaaraha gudaha iyo magaalada garowe. waxaa magaalada garowe gaar ahaan garoonka Classic ka bilowday tartan kubadda cagta ah oo loogu talagalay bisha Ramadaan kaas oo loogu magac daray Jowle League isla markaana ay ka qayb galayaan ilaa iyo 10 kooxood. tartankan ayaa waxaa ciyaartooyda ciyaareysa ka mid ah xidigo caan ka ah isboortiga Puntland. wararka dibadda haddii aan aadnana kooxda Parma oo ka mid ah kooxaha ugu caansan Talyaaniga ayaa muddo 4 sano ah kadib dib ugu soo laabatay horyaalka Serie A kadib markii ay ciyaar kala bax ah oo ka tirsaneyd horyaalka Serie B ay jimcihii shalay 2 gool iyo eber uga badisay kooxda Spezia. Parma oo 2 jeer horey ugu soo guuleysatay koobka UEFA Cup oo hadda loo yaqaano Europa League ayaa waxaa sanadka 2014 loo celiyay horyaalka saddexaad ee Serie D kadib markii ay musallaftay dhaqaale xumo ba'an oo soo wajahday. dhinaca Ingiriiska laacibkii hore ee khadka dhexe ugu ciyaari jiray kooxda Arsenal Mikel Arteta ayaa qarka u saaran in loo magacaabo xilka tababaraha kooxda Arsenal si uu u bedelo macallin Arsene Wenger. warbaahinta Ingiriiska ayaa maanta qortay in Arteta uu mabda'iyan aqbalay macallinnimada Arsenal balse lama shaacin faahfaahinta heshiiska uu saxiixi doono iyo muddada uu la joogi doono. tababarihii hore Arsenal Arsene Wenger ayaa waxa uu dhowaan ku dhawaaqay inuu kooxda Arsenal ka tagayo 22 sano kadib markii uu leylinayay. ugu dambeyntiina kabtankii kooxda Juventus Gianluigi Buffon ayaa maanta macsalaameeyay taageerayaasha kooxdaasi kadib 17 sanadood oo uu kooxda ka tirsanaa. Buffon ayaa waxaa lagu macsalaameeyay guul kadib markii ay kooxdiisa Juventus ay maanta 2 gool iyo gool uga badisay kulankii ugu dambeeyay sanadkan horyaalka Serie A kooxda Verona. aad baad u mahadsantahay nuur. barnaamijkii qubanaha maantana waa naga intaynu dib u kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.